subax wanaagsan saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin. Waxaan soo qaadanaynaa xigmadihii dadkii hore ee saddexleyda ahayd. Waxay dhihi jireen saddex way gurguurtaan. daa'imo carruureed biyo dooxa soo galay iyo diinkuba wuu gurguurtaa. saddex lalama orotamo karanuugta suglayn sanka subag idaad dhamay iyo seega lalama orotamo. saddex way gollacadahay geeda naaga dirteen iyo guri dayrta laga baxay goray waa gollacad yahay. waa run wey saddexdaaba saddexleydaasba ama sagaalkaasba mid walba sidaa loo dhigay ayay run u tahay. su-aasha koowaad dhig maxaa laga wadaa? sidaad dhawaaqaba ka dareemayso waa ul soo godan, ul buuran oo dheer haddana la soo goday. maxaa laga sameeyaa haddii la yidhi? dhigta waxaa laga sameeyaa geed. inta badan waxaa laga soo gooyaa ama laga soo guraa dhigaha geedka la yidhaahda galoolka, geedka la yidhaahda mareedhka, geedka la yidhaahdo gabrada. geedahaasaa laga soo guraa. waa ula dhuudhuuban oo gacantaada la eg laakiin aad u dhaadheer. sidee loo sameeyaa? dhigaha iyagoo qoyan baa lasoo guraa ama uluhu iyagoo qoyan baa lasoo guraa, kadibna dab baa la shidaa. dabkaasaa marka lagu gubaa. kolkuu dabku aad u gaadho deerkooda ayaa lasoo qalloociyaa oo geed baa saa loogu qabtaa, kadib baa lasoo qalloociyaa. iyagoo qalloocsan oo dabkii lagu soo qalloociyey baa deerka laga qaadaa. kadibna labadii dhigoodba waa la isku qabtaa, madaxa la isu geliyaa. deetana xaggan dambana dee salkoodii buuraabu noqonaya, xaggii baarkiina waa la isku xidho, waa la isku duubay. saasay dhig ku noqdaan. dhiguhu qaybo ma leeyihiin? haa, ilaa 3 qaybood bay u kala baxaan: dhigdhexo, afgudub ama singudub iyo lool. saddexdaasaa loo qaybiyaa. dhigdhexooyinku waa kuwa dhaadheer ee guriga bartankiisa ku aada, oo markii gurigu la qotamiyo dhaladan kore dhigaa jooga oo ileen haraka kor laga saarayaa. kuwana waa gudban yihiin. kuwana dhigaha korkore ayaa lasii dul saaraa oo nooc yar mareed ahaan ah ayay u noqdaan. saddexdaa qaybood ayay dhigu ka kooban yihiin. markii lagu leeyahay gurigu wuxuu ka kooban yahay dhig iyo dhambal, dhigaha soo qalqallooca kaliya looma jeedo. wax kasta oo geed ah oo guriga gelaya ayaa dhig loo jeedaa. hadday noqon lahaayeen dhigaha hadda aan kasoo sheekaynay, iyo hadday noqon lahaa udub, iyo xataa hadduu noqon lahaa kan la yidhaahdo shaashka loo dhigay dabdhigaha la yidhaahdo, intaba maaragtay waa guriga waxa gelaya maaragtay geedka ah. marka si guud baa dhig loo yidhi, si guudna dhambal baa kuwan kale loo yidhi. marka guriga waxaa galaya ee geedaha ahaa 3 dhigood oo kala duwan oo dhigdhexada, kuwan gudban iyo loolka iyo udbo fara badan oo midka ugu xoog badani udub dhexaadka la yidhaahdo, iyo mid hinsaraar la yidhaahdo oo alaabta sida maaragtay sariirta oo kale loogu intii loo qotomiyo dhulka aqalka uurkiisa meel ah yaa lagu rasteeyaa. kuna ilxidhka lagu waxeeyaayo guriga markii loo samaynayo dahada ayaa isagana la qotomiyaa. marka way fara badan yihiin udbuhu, oo labada dhigood meesha iskaga yimaadaanba udub baa yaa laga dhex qotomiyaa yaa isku qabta.
guriga markaa intaa ku sheegno oo tii horeysay oo aynu nidhi ama qaybtii horeysay aynu ku sheegnay dhambalka oo haradii ah iyo dhigahan la isku wada geeyo guri weyn oo qurux badan oo ka hadda aad arkayso kala ah ayaa soo baxaya. waana ku lahaa abwaanku aqal gaari dhawanliya nin dhalay dhab ugu hawshoonin oo nodobdhexaadka iyo dhigaha dhidibta loo aasin ileen dhaxanta kaamuu celshiyo dhibicda dayreed. wuxuu ka wadaa abwaanku aqalka haddaan loo dhammaystirin dhig iyo dhambalkiisii oo nodobdhexaadka iyo dhigahana qumaati loogu aasin maartay dhulka oo la adkaynin haddii dabaysha la tegi Soomaaliya kolka horeba heeryadiina haddaan si fiican loogu kimtirin oo heeryo cusub la saarin roobka uu soo deyni guri la sacan kara ma noqonayo ama roob laga magli karo. marka wuxuu yidhi aqal gaari dhaman leh gabadh qurux badan iyo nin dhalay dhab ugu hawshoonin. dee gabadha aabaheed baa gurigeeda dhiso oo dee waxa weeye yarad buu ka qaatay Soomaa. marka waxa weeye dhurbadii iyo maadhii iyo wixii oo dhan baa la soo wada gurayaa kadibna gabadha guri waxa loo dhisayaa qaali oo aad u qurux badan. marka wuxuu yidhi aqal gaari dhawanliya nin dhalay dhab ugu hawshoonin oo nodobdhexaadka iyo dhigaha dhidibta loo aasin ilaan dhaxanta kaamuu celshiya dhibicda dayreed. dhaxan kaa celin maayo dee haddaan guriga la nadaaminin. guri marka saa loo dhammaystiro waxaa loo yeelaa waxa la yidhahdo doc iyo daho. docdu waa meeshan iridka ee dabka lagu shito marka guriga saa dhirta looga galo uu kala xidhan yahay gurigu oo meel shisho oo waxaa jirta la seexdo iyo meel soko oo aan waxba lahayn oo kashkaash waxba lahayn. halkaa shishe kashkaash caws baa la dhigayaa kadibna qori baa saa loo gudbayaa xidh buu leeyahay oo daah yar baa yaa loo yeeli. xaggaa marka waa la seexdaa. markaad halkaa usoo gudubtana meel yar oo waxaa jirta bannaan oo inta iridka la soo gaadhin halkaana doc baa la yidhaahdaa. marka halkaas gudaha hoose ee cawska leh haddana waxaa laga sii sameeyaa waxa la yidhaahdo daho. waa ku abwaankii la odhan jiray abwaan saahid qamaan gabadhii uu guursaday ku lahaa aqalkiyo ardaagiyo udbaha aradka qoyskeenna iqlib iyo awaare isku baxay sida ta-ood geesha yuusan kaa ahaanine kurtiba ha isku wada awdmo. yuusan kaa ahaanine kurtiba ha isku awdnaado isku ilikib awdoo anshixi ila xidhkaan jiifo annaha igu itaalina ka yeel meel ergada deeqda. hadal weyn soo maa aqalkiiyo ardaagiyo udbaha aradka qoyskeenna gurigan dee la dhisayo yuu ka hadlahayaa. iqlib iyo awaare isku baxay sida ta-ood geesha wax wada yuuban oo isdhex yaacsan yuusan kaa ahaanine kurtiba ha isku wada awdmo isku wada nadaami dee isku wada qurxi isku ilikib haddana awdoo anshixi meelaha dulduloo dhan yar ha nadaami ila xidhkaan jiifo meesha gaarkeen anuu jiifo maarta il gaara u yeela buu. annaha igu itaalina ka yeel meel ergada deeqda. ha odhan uun intaad matiriso intan bay leekaan lugiis intan haddaad keliga meesha la ekayso qolad ay noqoto dee dadka martida iyo ummadda ay soo raaci lahayd xaggee maartay fadhisanba. marka meel qofka ila socda iyo ruuxii maartay dee nala ekaan karta anigana waafi noqon karta ii samee oo wuxuu maartay iga nadaami. abwaankii la odhan jiray andhehe inuu ahaa baan jeclahay cabdi gorod hadda halkan igama muuqdee asna gabay buu tiriyey uu kula hadlahayo marwadiis. wuxuu yidhi dahaway aqalkeennu dulduleel badana daho iyo sawduc uma yeeshid innagoo isku daadsan baa layna daawanaya. aqalka soma nadaamin sidoo doc iyo daha iyo meel la kala fadhiisto uma samaysid. docdu waa meesha iridka ah ee alaabta la dhigto. dahaduna meesha ilxidhka leh ee gudaha hoose ah. meel dad kala
kala nadaamsaso guriga uma samaysid ma isku sii dhexdays baa haddii guriga la isku sii dhexdaayo meel la seexda ma leh iyo meel lagu gabado guriga waxaa jira wax gogasha looga hoos mariyo oo kashkaash la yidhaahdo kashkaashaas waxaa laga soo guraa dareemada caws qudhanka iyo dee caws oo dhanba marka guriga dhexdiisaa la tuuraa oo si fiican loogu rasteeyaa camal furaash oo kale lagaga dhigaa kadibna geed baa loo dhigaa la yidhaahdo dabdhige geedkaas wuxuu kala celinayaa cawska yahalla gudaha aqalka iyo docdan bannaan ee dabka lagu shidanayo marka waxaa la yidhahdaa dabdhige guri marka dugsoon oo dabdhigaha leh oo kashkaash leh oo docdii leh oo daha leh oo maaragtay alaabtii raar loo sameeyeyoo wada dhalaalaya kolkuu qofku uu soo galo dee adduunku maaragtay magaal buu noqonayaa waa kulaha abwaanku nin daar ku jira daruur ma arkay ilen xalay roobkii baa da-ay halkaana dumarku way ku kala tagaanoo gabadh iyo gaarinimadeeda ayaa maaragtay kusoo kala baxaan mid baa dabkeedba ah midna wataa haddee meeshaa ninkeedii seexisay waa qaybta 5 iyo haddii ilaah yidhaahdo waqtigeeda la socod wanaagsan